taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa waxa ay si ballaaran cududooda u muujiyeen maalinta uu xisbiga talada dalka ayaa kulmiye u lahaa kaltanka ololaha doorashada waxaana kala qayb galay barasaabka xigeenka gobolka Saaxil xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiin kale taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa inta aan imanin goobta loo asteeyay halka ay ku soo bandhigayeen cududooda taageero waxa ay ku soo wareegeen oo ay soo mareen bartamaha magaalada ugu dambeynna waxay yimaadeen goobta loo asteeyay inay cududooda taageero ku soo bandhigaan waxaan halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ugu horeeyo barasaabka xigeenka gobolka Saaxil kuwaas oo ugu baaqay bulshada Soomaaliland in loo codeeyo xisbiga kulmiye iyo musharaxa madaxweynaha xisbigaasi si ay labadooduba u soo baxaan waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Sheekh ee maanta u kala harin inay muujiyaan inay yihiin xisbiga kulmiye waxaan u mahadnaqayaa marwada qaranka oo maanta inala joogta inala soo qayb gashay maalinteedii koowaad waxaan kala u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta labada xildhibaan ee golaha baarlamaanka ku matala degmada Sheekh waxaan kala u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil bacda salaan maanta reer Sheekhow waxaynu dirnay fariin ah in degmada Sheekh ay tahay kulmiye waxaad dirteen in degmada Sheekh ay tahay kulmiye 18 kun cod yaalana insha Allah taala waxaynu ku hubtaynaa sanduuqa kulmiye Soomaha guusha kulmiye maaha ilaa ya maalinta u dambaysa sidaasaynu ahaanaynaa dadaal baad muujiseen runtii rabitaankiinaad muujiseen waxaad isku abaabushaan sidii mataqaanaa rabitaankiina waxaan markhaati ka ahay in hooyo kasta iyo ilmo kasta ay xalay sugi kari waayey intuu waagu baryayo allah yaciisag waad mahadsantihiin reer Sheekhow dacad baad taagan tihiin waqtiguna waa kulul yahay waan idin damqanayaa intaas allahu akbar aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa sidaa aa u diyaargaroobeen labadii bilood ee ayna soo dhaafay iyo tirada xafiisyada laga furay degmada iyo magaalada gudaheedaba intaa dad baa soo taagnaa oo had iyo habeen soo taagnaa dadkii soo taagnaa waa idinka intii idinla shaqaynaysayna waa inta halkan fadhida ilaahay sharaf ha idin yeelo waxaan leenahay madaxweynahaynu wadanaa waa madaxweyne muuse biixi cabdi xisbigeennuna waa xisbiga kulmiye innagu 5 farood oo kale kaana taagi mayne 2 calaamadood baynu taagaynaa waa ta xisbiga kulmiye lambar 10 iyo ta madaxweynahoo lambar 2 intaasuu baynu taagaynaa kuwa faraha kala garan waaye marna 5 taagay marna 6 taagay marna 1 taagay marna 9 taagaya inagu ma nihi soo ma hal meel baynu ku abtirsanaa kulmiye noolaado insha Allah waxaan salaamayaa dadweynaha sida quruxda badan ee ay ku jirto xamaasadu soo kacay kuna bixinaya cududooda dhoolatus fagaadayaalka degmada Sheekh iyo gobolka Saaxilba waxaan salaamayaa marwada madaxweynaha koobaad Sahra Cabdullaahi Cabsiyo madasha fadhida iyo waqtiga ay la socoto waxaan leeyahay Sahra waa gurigeedii waxaan leeyahay kulmiye miyuu ciidanka qaranka caaya kulmiye miyuu ku digtaa saraakiishii kulmiye miyuu ku digtaa farama waxaynu nahay xusbiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xusbul xaakimka lexjeclada rajada shacabka iyo ciidamada qaranka inuu soo xilqaanay aad iyo aadaynu xisbigeena waliga baanu taageersanay tiirkaynu ahaa aad iyo aadaynu soo taageer maantana waa taageeraynaa waa saasoo abaada aynu maalin walba ku wadayno maanta ninkii naga baydhay aad buu indhaxu yahay aad buu madow yahay sawbaydaan arkayn indhaxumada sawbaydaan arkayn sidaynoo ogeeyeen sawbaydaan arkayn yaa kuu baahan weeye yaa kuu baahan cidna kuuma baahana weeye waxaan leeyahay waa xusbigeennii caddaa ee weligii caanka ahaa maantuu caanihii dhalay waa u cawaysimaynaa sidaasaynu ku wadaynaa haddii baydanka codka yaale
somalilan ha guulaysato muuse biixi cabdi ha guulaysto eesanabna ha guulaysato innagu yaynu nahay ninka eesanam diidani waa nin somalilan diidan somalilan ninka diidani waa nin eesanam diidan eesanam ninka ka diidana waa nin somalilan diidan waad dhacday xaggaad la dhacday halkaad martay baad la dhacday annagu ceebta ma naqaano caydana ma naqaano haddaannu kulmiye nahay waxaanaanu leenahay weligayaba kulmiye lagama badine guusha annagaa leh sooy guusha innaguma lihin iyaga maxaynu nidhi dem laba kelmood halkan ka idhaahdo hadallo badan oo shalay la lahaa waxaa ka mid ah dad baa albaabada garaacayoo dadka kule dhiiguma biyaa waar annagaa le dhiiguma biyaa waa dhiiguma biyaa soo kulmiye dhiiggeenna ma aha soo muuse biixi nagamuu dhalan annagaa leh annagaa ku faanayna annagaa kulmiya war soo kulmiye ma dhihin allahu akbar allahu akbar allahu akbar somalilan ha noolaato somalilan ha israacdo cadowgeedu ha jabo xisbiga kulmiyena ha guulaysto madaxweynaha qaranku ha guulaysto mar labaad ha guuntiisi qiimo badan isugu xilqaantay labadii bilood ee u dambeeyey inay wax kastoo ay hayaanba dhulka dhigaan sidii xisbiga kulmiye u guulaysan lahaana uga shaqeeyaan mar kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacbiweynaha degmada shiikh oo runtii cadceeddaa u taagan si ay u muujin lahaayeen daroonkooda ku aadan inay xisbiga kulmiye cudud iyo codba la garab taagayn soo sidaa ma aha maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121 u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas